الرحمن الرحيم caawa waxaan idin bari doonaa ama aynu kala baran doonaa ama aynu kala faa'iideysan doonaa qaabka loo fudaydiyo mobilka haddii uu kaa cuslaado ama aad dareento inuu aanu khadku si fiican u shaqeynin ama culays aada saayid ama kulayl aad dareento haddii aan gudagalno barnaamijka sida waqtiga aynu ilaashano settings baynu ugu horeyn tegaynaa dabadeeto waxaynu hoos ugu dhaadhici doonaa applicationka inagoo ka doorana apps-ka markaanu doorano waxaanu dhaqaaqi doonaa qeybta midig ilaa aynu ka gaadhno ilaa aynu ka gaadhno halkii aynu doonaynay oo aad arkaysaa maan filayaa barnaamij kastaba halkaasuu ku yaalaa matal local application waan arkanaa 852 852 kb intuu shaqeey 12 marka clear catch baan leenahay mobilkaagu wuxuu noqonayaa mid aad si fudud aad ugu soo dejin karto wax kasta oo aad u baahan tahay antivirus kana kala wada arkaysaa clear catch baan leenahay ama clear data okay dhamaan waynu arkanaa shaqeeyay oo dhan ee uu hawl waday waayo isaga laftigiisa shaqo ayuu wadaa inta uu mobilku dhex jiro waanu ka masaxnay haddaynu mid kale iPad kan oo kale haddaynu eegno waad arkaysaa waxa weeye halka balatirada waad arkaysaa 30.41 29.44 790 marka clear data bade oo inaga masaxaya waad arkaysaa marmaraya intaas sare mooye 29 iyo 29 marka ka dhigay intii kale oo dhan uu naga qaaday wixii qashin iyo qoob halkii ku jiray haddaynu mid kale tusaale kale sii bixino kuwa culayska badanaa tusaale ahaan sawirkan sawir kaydiyaha kale isagoo waxba ma laha qaybta kale inuu eegnaa qaybta kalena waxba ma laha waayo markastaba waan masaxaa oo waan nadiifiyaa meeshan way buuxdaa waad arkaysaa inay 44 qashin buux oo dhan 80 124 kb okay clear data si fudud mobilkaagu ka fudayd hadda waxa uu shaqeynaya khadku sida hore si ka wanaagsan mobilkaagu culays iyo kulayl toona yeelmay dabka lumin maayo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fadlan subscribe hanaga ilaabina like comment share wixii aad u wada haddii uu ku anfacay walaalkayo hanagala bakhayn subscribe wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalkiina idin leh habeenka